isla wax ilaaliyo marka labada shay oo ka codsanayo adiga militariga waa taqaanaa wuxuu yahay wuxuu gudu waa taqaanaa wax laga sheegay ma ani walaalkay waad aragtay ciidamada baddu ahaa maalintii uu ka baxay raashuu soo bartay xidid uu qaatay ilaa shariifkan hadda madaxweynaha janansi hotel baad ka seexateen safarkii hore intaan dowladda la dhisay waa dhintaan waqtigiisa ka ciidamada sharaf bay lahayd waxaan ku ogaa jirnay ninkii dablab allah ka dhigay ilmihiisa in la xanaanay ba dablab allah ka dhigay iska dhaaf nin oo janan noqday ama gaashaan sar noqday ilaa ninkan waa aragnay waxaa la geen jiray ilmaha meesha agoonta oo ciidamada waa la barbaarin jiray waxbaa la siin jiray ilaa iskool uu barto mutacallim noqdo ninkii haddii la waayey maanta walaalkii laba cunug u dhaafay dee labadii cunug u dhaafay wuxuu ka tirsanaa ciidanka badda wuxuu ahay tariixigeenka ninka la yidhaha faarax qare hadduu dhintay duugtii waxay ka ahayd $300 hortiin u socday labadii cunug meel uma sheego macnaha in macnaha wax la baro la xanaaneeyo ay u baahnayd maadaama abahooda u dhintay qarankan uu shaqeeyay isgoo walaalkiisa kabtan u ahay saan ku ogaay bacdi inuu darajo kala helmo isgooga walaalkiisa ciidan u ahay waa dhintay allah waxaa laga yaabaa ilmihii kuleyba ciidana saas oo kale waxaan markaa codsanaynaa ciidamada dable ilaa janan carruurta ay ka tagaan horta in la xanaanayo sidii awal bay ahaan jirtay shaqada waa waajib qaranka saaran xuduudda saaran adoo garanaayo macnaha ciidamada shaqada mideeda labaad codsiga kale waxa waaye haddaan ciidan la helin dowlad ma jiraysa sideedaba okay askariga lacag baa la siiyaa ama kan garaadada kan banaan ka yimid oo askarigana bees fiican u qaata ciidan Soomaali oo dhisan oo tayo leh lacag ka siiyaa inta kan kala daldaray dollarka kii wadan ku dhimanay oo ciidan lahaa oo garanaysid dabla ka soo bilaabo waad markuu isbitaal gaaro akademiga la geeyo xiddiga loo bilaabo jiray hore u soo jiray marka lacagtan in loo koobiyo kaygaas la وما صدق هو فاتت وروي كاركا هذا كل انت سو واجب سكودنا يا ان هيك سلحنانيو وانا جريتي وانا لو باهي جريت لكن صار له صوتان dalkii wali wuxuu ku jiraa sidii u dhis oo wixii baa la kala gaari laayay oo dhaqaalihii baan jirin oo ciidamadii baan yaan degaankii loo baahnaa iyo noloshii loo baahnaa iyo mushaarkii loo baahnaa aan haysanin marka waxaasoo dhan way imaan doonaan laakiin baashu inay istaagto lugeeda ku istaagto marka hore oo Soomaalidu istaajiso ma aha yani in dadka ka sugan inay istaajiyaan inaguna istaa sab garano inta istaajino ya loo baahan waxaasoo dhan dib u imaan doonaan annaga hadda saraakiisha badan baa jirtaan 8 jaran baan meel ku wada deganahay oo u timid arrimahaas u joogta meesha oo buuga qoray oo marka horena ku shiray dhinacan Mareykanka Washington markii dambe Kenya ku shiray markii dambe xamar joogay oo wax alla wixii loo baahan yahay ciidamada buuga ka qoray buugta leh waxa uu mushaarkoodii wixii loo baahan yahay qoray ayaa jooga xamar jooga waan meel wada deganahay waxaasoo dhan waa xisaan dowladda laakiin waxaa la leeyahay weli tabartii iyo dhaqaalihii lagu fulin lahaa hawshaas ayaa weli jira ilaa waxaa gaarnay heerka uu mushaarka uu qaadanayo meeshuu reerkiisii iyo raashinka la siin lahaa garaamuhu u qaadan lahaa waxaasoo dhan waa qoran yihiin waana runtaa oo yani ciidan Soomaaliya waa laga maarmaan ciidan hadduusan jirin Soomaaliya dhismaysa nabadgelyada ma jirayso dowladdu ma jirayso lacagta ay qaadanayaan nimanka asigtay ajnabiga yani iyo kan Soomaaliya askariga ama jananka Soomaaliya lacagtu qaad waa kaafiye kala dheeri wey
waxaan isu keeni karo ma aha yani jananka soomaalida dhowr bilood ka hor ku qaaday sanad ka hor ku qaadanay $100 $100 marka caqli ma aha marka waxaasoo dhan waxaa weeye waa ka hadalnay laakiin weli reerkii waa weli guuraya maarata muusan digin saldhig lugihiisa ku istaago weli lama gaarin waktigana waa gaabnaa dawladda meesha joogtay soomaalidana waxay rabtaa in 5 daqiiqo wax lagu dhameeyo oo qofkii lama siinayo janis uu ku fikiro ama hawl ku qabto lama siinayo waxaa leeyahay war markiiba muxuu saa u qaban waay muxuu saa u qaban waay baa leeyahay marka waa runtaa waxaad tagtay waa loo baahan yahay ciidamada in la dhiso wixii waajib ah oo laga rabo iyo waxay leeyihiinba in la go-aamiyo waa laga maarmaan wayna iman doontaa insha allah وقتها عريض نقول هذا هذا السؤال عن قادم الله كريم هذا السؤال عن قادم اوكي وحنا سؤال شقبت سارة بسم الله قال هذا كان ولي في عيني ما شاء الله سلام عليكم الحمد لله الله يكون بسيئو ميل وعرفتي موقتا لو تاغنتهاي سي شرف لها maanta anagana aan ugu haysanaa inaan walaalkeena meesha loo taagan yahay diideen aaday u dhisantahay alxamdulilah horta dowladda xeer allah siiyo waa u tahniyeynaynaa waa u hambaleynaynaa hambalyo kaligeed wax ma taraysa waxaa fiican inaan u duceyno waajibkeena waaye hadda lugaheedii ma adka cunug tababar camal waaye laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa sidaan jecelnahay inuu ilaahay noogu saqiro wax badan ma sheegi rabo horta dad badan oo maanta naga maqan hooyooyin badanaa maqan oo maanta meeshaan mudnaay oo rabay macnaho fikradooda inay ka jeediyaan ay rabeen waa jirtaa nasiib darro muuse wuxuu usoo wacay maanta waqti qaliil ah oo dadkii aanu ku wargelin karin dad badan oo macquul ah maanta galabta naga maqan oo hooyooyin oo rabay inay maanta shirkaa nagala soo qayb galaan laakiin ma dhicin markay noqonaysaa insha allah hal xaba su'aal yaraan qabay dowladda wax badan TV-ga waa aragnay hawshoodii siday u socotana waa aragnay ma isweydiisay dowladda dagaalkii hub badan ayaa wuxuu galay dadweynaha gacantooda hub badanaa wuxuu ku jiraa banaanka oo gacantii dadweynehay ku sugan tahay maantana waxaa la yidhay hub loo ballan qaaday inay dowladda gacanteeda kusoo xashiso cunaqabateynkiyaa laga qaad marka qorshaha ma ku jiraa dowladda ay dhahayso hubkii dadweynaha gacantooda ku jiray qabiil walba ha ahaado dadka nasiib u yeesha inay hubka qaataan oo ay xareystaan ma la isweydiin in lagu soo celiyo dowladda gacanteeda دار وزوجي سؤال شو هو يعني إنت هذا اللي قال ده بس أنو خطر سنة وخطرت كينك ورلتا ويصحوي أنا قابلتي ولا قاري صار مقشن لكن لما هو قادنا سنة تجارة أي الله حديدي ولي هو بيرجع هوكي وأنا كم بحب مقالة هوكي دولته مقالة كم بحب waagii hore oo la wada qaatay warlooradii iyo wixii oran ay wada qaateen waa loo baahan yahay marka taas arrintaas dhowr goor waa laga hadlay annaga xataa buggana kuu sheegahay yaa ku jirtaa in hub aruurin la bilaabo waa un la sheegay laakiin nasiib darro weli ma hirgelin laakiin arrintaa waa la wadaa waa shayga ugu muhiimsan wey haddana ismar idin soo qaado nimanka hadda aan la dagaalamayno oo shabaabka waxay sameeyaan hubka way og yihiin gubeelaha ay degan yihiin markii la ogaado hubka waa laga soo aruurinaya meelo la og yahay intay godadka qodaan oo aan laga filayn oo waddada geeskeeda xataa iyo hubka ku aasa kuwa laga qabtay iyaga oo soo galay ama is soo dhiibay
ayaa sheegay meesha ay ku jiraan hub badan baa waxaa laga soo saaray masalan wadadan aada buudadan muxuu ahaa oo dabka ka tagta ilaa halkaas iskoola booliiska geesaas hubku aasan baa laga soo saaray ay tilaabin tirada halkan hub baa oo la qabay oo hubkii ku jiro bac ku duuban yaa la soo saaray oo markay u baahdaan ay la soo baxayaan marka waajibka hubka aad buu u badan yahay magaalada uu ka buuxaa tallaabo in laga qaado waa loo baahan yahay waa su-aashaada aad bay u fiican tahay insha allahna waanu ku dadaali doonaa in arrintaa la hirgeliyo oo ka dhaadhacino muxuu ahaa dadka ku shaqeeya aad baa umahadsanta waxaan horta ugu mahadnaqaynaa imaatinka ultimate caawo halkan nagala soo qeyb gashiid oo warbixina naga siisay xaaladda dalka uu maraayo marka hore waxaan rabnaa salaadna gaarsii madaxda muqdisho fadhido dadkeena reer Portland haddaa tahay salaan maaragta 114 xambaarsan oo gaarsii su-aal ayaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka halkaa degan waxyaabo badan ayaa laga yaabaa inaan awoodno haddii aan rabno masalan inaan wax deeqa aan soo gudbino inaan kusoo marno maxay kula tahay mise ra'yi kale adna siinaysaa oo aan kusoo gudbinayn wallahi su-aal fiican wey in deeq la bixiyana waa lagama maarmaan waa loo baahan yahay oo dadkii dad badan oo baahan baa marka dadkaad bixinaysaan iyadoo loo dirahayo dee dadka Soomaalida ee dhibaataysan loo dirahayo haddana xildhibaankiina inaad soo marisaan waa lagama maarmaan bilad jawaabteeduna waa maqlay hadda marlabaad alman dadkana ha maqlaano su-aalaha soo noqnoqoto oo ah 4.5 ma nool yahay dadka ku jira dad oo 4.5 ka hadlaan oo macnaha dad bay kaga dhigan tahay dadka dhigan tahay macnaha dadkii qaarna dad baa ayna Soomaali ah ee Soomaali yihiin macnaha wax fahamsiin ma waayeen arrintaas waxaan u malaynayaa 4.5 dambe inay jiri doonin aniga waxaan ka hadlaa dadka baarlamaanka yacni raalli lagama aha mana doonaya 4.5 wax caqli ma gala 4.5 waa siman yihiin waa isku mid waay la leeyahay haaf iyo aad umahadsan tahay faarada laga badiyay waxa waaye maxay samaysa marad dadka oo dhan u samaysa Soomaaliya dhan ana waxaan ka hadlaa marad cadaalad xamar jiro abada kiira oo guriyii dadka laaya la buugaa kii maxkamadda joogana uu ansaxaa